السلام عليكم. مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay dhamaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka. Kulankan waxay madaxdu kaga arrinsadeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda taas oo ka turjumaysa horumarka iyo hiigsiga dalkeena kuna qabsoonta jawi xasiloon oo dhameystiran. Kulankan ay madaxdu yeesheen waxaa lagu ambaqaadayay qodobadii warmurtiyeedkii 17kii bishan ay wadajirka u saxeexeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhamaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gudoonka gobolka Banaadir, kaas oo qodobkiisii 11aad uu qeexayay in heshiiska siyaasadeed loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si ay u meel mariyaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo qaadanaya doorka kaga aadan midnimada iyo ilaalinta wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayaa la wadaagay gudoonka baarlamaanka muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii wada tashiga doorashooyinka iyo dhameystirkii heshiiskii Samareeb 3. waad mahadsantihiin.